laegtana ha naga hilmaamina. aanu ku bilaabo marka hore hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa khamiistii sheegtay in ay baabi'in doonto hodantinimada dalalka khaliijka ee ku dhisan saliidda 15 sano ee soo socota haddii aysan samayn isbedelo miisaaniyadeed. 6 dal ee la isku yiraahdo golaha iskaashiga khaliijka ee kala ah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka oo hodantinimadooda ay gaaraysa $2 trilyan ayaa soo saara 20% shidaalka laga isticmaalo caalamka. hase yeeshee waxaa dhaawacaya hoos u dhaca qiimaha shidaalka dunida. IMF ayaa sheegtay in dalabka dunida ee shidaalka uu dhammaan doono sanadka 2040 amaba ka hor haddii ay sii socdaan dadaalada lagu badbaadinayo deegaanka iyo isticmaalka tamarta ee ku dhisan shidaalka. dhammaan dalalka khaliijka waxa ay garowsan yihiin caqabadaha ay wajahayaan, hase yeeshee xawaaraha ay ku sameynayaan isbedelo ma xasilin doonto dakhligooda ayay tiri IMF. dalalka khaliijka ayaa sanado badan waxaa hodantinimadooda tamarta ay u adeegsanayeen inay malaayiin ka mid ah muwaadiniintooda ay siiyaan shaqooyin dowladeed iyo adeegyo bilaash ah. hase yeeshee shaqooyin dowladeed oo lacag badan lagu bixiyo ayada oo shaqaalaha aysan wax soo saar wanaagsaneen iyo shacabka oo sii kordhaya ayaa sare u qaadi doonta qiimaha ku baxaya. dalalka khaliijka ayaa dhowaanahan bilaabay inay canshuur saaraan adeegyada iyo iibka walxaha qaarkood si ay dakhli cusub u soo kordhiyaan. hase yeeshee taasi wax weyn kama tari doonto miisaaniyadda dowladdooda. IMF ayaa tusaale u soo qaadatay dalka Kuwait oo ay sheegtay in 6 sano ee soo socota ay miisaaniyadda dowladda ay ka dhinaan doonto $180 bilyan sabab la xiriira dakhliga ka soo gala shidaalka oo sii yaraanaya. sidoo kale miisaaniyadda dowladda Sacuudiga ayaa waxaa sanadkan ka dhinaa $50 bilyan taasi oo ka badantii sanadkii 2019 ahayd oo ahayd $35 bilyan. IMF waxa ay sheegtay in qiimaha shidaalka hoos u sii dhacaya darteed uu sii kordhi doono gaabka miisaaniyadeed ee dalalka khaliijka. dhan kaleetana xigeenka taliyaha booliska Soomaaliya General Sakiya ayaa bartayda Twitter-ka soo dhigtay 28 January inuu xabsiga ka baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan. waxa ay sidoo kale sheegtay in laamaha amniga ay ku raajoogaan dib u soo qabashada Cabdirashiid Janan. 2 maalmood kadib waxa soo yeertay in Cabdirashiid Janan uu safar dhanka badda ah ku tagay magaalada Kismaayo, isla maalintaasna uu diyaarad gaar ah u raacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. kasoo muuqashada Cabdirashiid Janan magaalada Kismaayo waxa ku nafisay hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka oo lagu tuhunsanaa in ay qaarajiyeen, isla markaana lagu dhex arkay Cabdirashiid Janan magaalada Kismaayo. waxa xilkiisii iska casilay wasiirka qorsheynta ee maamulka goboleedka Jubbaland Aadam Ibraahim Awxirsi. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa u qornaa damiirkeygu ma ogola inaan qayb ka sii ahaado maamul u dabaaldegaya inuu hoy siiyo kuwa cadaaladda ka baxsanaya. balse dad badan waxa ay isweydiinayaan sidee buu ku baxsay Cabdirashiid Janan, yaase gacan ka geystay baxshashadiisa. agaasimaha madaxtooyada Jubbaland Abshir Maxamed Cabdi ayaa ku dooday inuu Cabdirashiid Janan weli yahay wasiirka amniga Jubbaland, isla markaasna maamulka Jubbaland ay ku faraxsan yihiin inuu ka baxsado gacanta dowladda dhexe, balse wuxuu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalo ahayd inuu caddeeyo gacantii ay ka geysteen baxsashada Cabdirashiid Janan. wuxuuna Abshir yiri waan ka gaabsanayaa taasi, hadalkaasoo loo fasiran karo in Jubbaland ay gacan ka geysatay baxshashadiisa. dhanka kaleetana wasiir xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo waraysi siiyay idaacadaha wuxuu si cad u sheegay in Jubbaland ay si hagar la'aan ah uga guntatay sidii Cabdirashiid Janan ee xorriyadiisa dib ugu heli lahaa, taasoo ugu dambeyntii ay ku guulaysatay. sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay in baxshashadiisa ay gacan ka siiyeen xubno ka tirsan dowladda iyo shacabkaba, balse wuxuu Maxamed Xuseen ka gaabsaday inuu magacaabo shakhsiyaadkaasi. haddaba waxaa jira su'aalo dhowr ah oo ku gadaaman baxsashada Cabdirashiid Janan. maamulka Jubbaland yaa gacan ku siiyey oo ka tirsan dowladda. maxay ahayd sababta qasabtay in xabsi guri loo wareejiyo Cabdirashiid 5 cisho ka hor baxsashadiisa? sida muuqata waxaa jiray shabakad isku xiran oo fulisay howlgal qaatay 48 saac kaasoo ugu dambeyn suurtagal ka dhigay in Janan uu magaalada Kismaayo soo galo. laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya waxa ay dadweynaha ka sugayaan jawaabo lagu qanci karo, isla markaana guddiga u qaabilsan amniga gudaha baarlamaanka waa inay kula xisaabtamaan hay'adaha ku shaqada leh ammaanka. hase yeeshee waa in aan la siyaasadeen howlaha ee lagu sugaya amniga iyo cadaaladda dalka. maamulka Jubbaland waxa hore loogu eedeeyay inuu gabaad siiyo shakhsiyaad xadgudub xuquuqda aadanaha ka geystay gobolka Soomaalida Itoobiya xilliga uu ka talinayay Cabdi Maxamed Cumar, balse maanta waxa uu u bareeray inuu gacan ka geysto baxsashada qof ku eedeysan ku xadgudub xuquuqda aadanaha oo weliba uu siiyay gabaad.
su'aalaha kale oo dad badan isweydiinayaan ayaa ah dukumiinti sidee ah ayuu sitay cabdirashiid janan oo ay dowladda Kenya ugu ogolaatay inuu kaga dego garoonka Nairobi dalkeedana uu ku joogo agaasimo xigeenka Amnesty International oo bariga Afrika oo la yiraahdo Steve Mongongo ayaa yiri wax la aqbali kara ma ahan in janan oo lagu tuhunsan yahay inuu mas'uul ka yahay dambiye xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo kuwa ka dhan ah bini'aadanimada uu isku dayo inuu ka baxsado cadaaladda Steve Mongo wuxuu dowladda Kenya ka codsaday inay xirto cabdirashiid janan isla markaana ay gacanta u geliso dowladda Soomaaliya si ay cadaalad u helaan ehelada dhibanayaasha laguna maxkamadeeyo dambiyada uu geystay dhanka kale taliska booliska Soomaaliya waxa ay hay'adda booliska caalamiga ah ee markii la soo gaabsho loo yaqaan Interpol ka codsatay in gacan ay ku siiso sida cabdirashiid janan loo qaban lahaa isla markaasna waxa ay dhigeeda Kenya ka dalbatay inay janan ay ku soo wareejiso Kenya waxa ay dhagaha ka fureysatay dalabka dowladda Soomaaliya iyo kan Amnesty International waxay diyaarad ciidan ay kaga qaaday Nairobi kuna geysay Mandera oo xuduud la leh Gedo Soomaaliya wuxuuna u soo talaabay degmada Balad Xaawo Soomaaliya si uu halkaas uga fuliyo danaha Kenya balse markii cabdirashiid janan uu ka warhelay in ciidamada federaalka ay ku soo wajahan yihiin Balad Xaawo ayna la wareegayaan degmadaasi Doolow iyo waliba Luuq ayuu dib ugu noqday Mandera haddaba waxa iska cad in maamulka Axmed Madoobe iyo Kenya ay ka wada shaqeeyaan iskana kaashadeen sidii janan uu uga baxsan lahaa cadaaladda su'aasha taagan ayaa ah maxaa Axmed Madoobe iyo Kenya ugu bareereen qatar intaasi la eg ayna u diidan yihiin in janan ee la maxkamadeeyo falanqeeyaasha siyaasadda gobolka waxa ay rumaysan yihiin in laba siyaabood ay ku xambaarayaan Axmed Madoobe iyo dowladda Kenya oo kala ah cabdirashiid janan wuxuu muddo dheer ahaa wasiirka amniga Jubbaland wada shaqayn dhowna la lahaa laamaha amniga Kenya xog sir ah oo lagu wiiqay qarannimada Soomaaliya ay dhici karto inuu hayo taas oo ka cabsi ay qabaan in ay si ugu gacan gasho sirdoonka Soomaaliya inuu cabdirashiid janan uu yahay qof ay Kenya kalsooni weyn ku qabto kana hortagi kara awoodda dowladda Soomaaliya ee ku fidaysa gobolka Jubbaland dowladda Soomaaliya waa inay qaadato tallaabooyin diblomaasi oo waafaqsan shuruucda iyo xeerarka caalamka oo looga hortagayo faragelinta Kenya iyadoo la muujinayo in xukuumadda Soomaaliya aysan marnaba halis ku ahayn deganaanshaha gobolkeeda dhan kale tana Lin Wang oo ah dhakhtar caafimaad isla markaana kamid ah 8 qof ugu horeysay ee dadweynaha uga digay cudurka coronavirus ayaa u dhintay isla cudurkii uu ka digay waxa loo haystaa inuu yahay geesi qaran Dr. Lee waxa xirtay booliska Wuhan markii uu faafiyay xanta cudurkan horaantii bishii hore wuxuu uga digay ardayda ay isku fasalka yihiin isagoo u diray fariin qaas ah oo u marinayay barta WeChat fariintaas oo macnaheedu ahaa fayraska ku faafaya Wuhan Lin Wang wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee cudurka la xiriiriyay kadib markii uu daweeyay bukaan waqtigaasi aan ka warqabin in waxa uu qabay uu ahaa fayraskan dilaaga ah warka geeridiisa ayaa yimid 9:00 habeenimo waqtiga maxalliga ah maalintii Khamiista ahayd kadib markii saaxiibkiis Dr. Lee uu u sheegay inuu ku dhintay qaybta daryeelka degdega ah Global Times oo ah warbaahinta dowladda Shiinaha ee afka Ingiriiska ku hadasha ayaa markii ugu horeysay ka warbixisay sheekada geerida Lin Wang dhimashadiisa ayaa si dhaqso ah u noqotay mawduuca ugu hadalhaynta badan baraha WeChat iyo waliba baraha kale ee dadkaasi reer Shiinaha ay isticmaalaan iyadoo laga jawaabayo geerida dhakhtarka hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa ee Shiinaha guddiga kormeerka qaran ayaa jimcihii shaaciyay inay koox u dirayaan Huawei si ay u sameeyaan baaritaan buuxa dhimashada Dr. Lee ayaa kicisay qulubta dadka Shiinaha oo walwal xoogan ka qabay cudurkan oo ilaa hadda ay ku dhinteen ugu yaraan 636 qof isla markaana uu ku dhacay in ka badan 40,000 qof goor sii horeysay ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in tirada kiisaska cusub ee la xaqiijiyay ee loo yaqaan coronavirus ay hoos u dhacday markii ugu horeysay tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay dowladda Shiinaha gaar ahaan hoggaanka maxalliga ah ayaa dadweynaha kala kulmay dhaleecayn ballaaran oo ku aadan sida ay wax uga qabteen cudurkan dilaacay dhanka kale tana dowladda Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala saxday heshiis la isku furayo hawada labada dal si loo sahla ganacsiga labada dal Soomaaliya ayaa waxa heshiiskaasi u saxay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad halka dowladda Rwanda uu saxay wasiirka kaabiyaasha Khalifa Haftar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa aad u soo dhaweeyay horumarka uu gaaray dalka Rwanda isagoo ku tilmaamay in heshiiskan uu xoojin doono ganacsiga labada dal
aad ayaan idinkugu hanweynahay adinkoo dagaalo sokeeya ee xasuuq ka soo laabtay haatana heer wanaagsan aad gaarteen waxaan rajaynaynaa in arrintan ay noqon doonto tallaabadii ugu horeysay ee dhinaca ganacsiga labada dal ay hore u qaadeen ayuu yiri wasiir Salaad waxaan hubaa in dhawaan aad arki doontaan ganacsato badan oo Soomaali ah kuwaas ku qulqulaya dalkiina si ay u maalgashtaan adinkana waxaan idinka rajaynaynaa in ganacsatadiina ay Soomaaliya yimaadaan ayuu yiri wasiirka gaadiidka Soomaaliya sidoo kale wasiirka kaabayaasha dalka Rwanda Gatite ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay kii boqolaad oo ay dalalka caalamka ka tirsan ay la saxiixdeen dawladda Rwanda una rajaynayo inay albaabada ganacsi oo cusub ay u furi doonaan dalka Soomaaliya ayaa marba ka dambaysa waxa uu gaarayaa horumar dhinaca xiriirka dalalka caalamka ee dhinaca isgaarsiinta hawada iyadoo diyaarado laga leeyahay wadamada Kenya Djibouti Turkiga Qatar Uganda iyo Ethiopia ay duulimaadyo ku yimaadaan garoonka caalamiga ee aadan cadde dhan kaleetana maxkamadda sare ee Shiinaha ee Supreme People's Court ayaa lagu wadaa in ay go'aan ka gaarto in la xasuuqo bukaanada la dul yaala cudurka viruska ee coronavirus ee dalkaasi sibaa la yiri ay u xakameeyaan cudurkani Shiinaha ayaa ka warwareegsan inuu howlwadeenadiisa caafimaadkiisa in badan oo ka tirsan oo ku waayo la tacaalida cudurkani maadaama ay dhinteen dhaqaatiir muhiim ahaa iyo kalkaaliyaal badan oo ugu yaraan 20 gaaraya dawladda Shiinaha ayaa ku doonaysa in bukaanada isbitaalada la dhigayo kaliya lagu daaliyo balse ay ugu dambeyn cudurkani ay u dhimanayaan inta badan sidaas darteedna ay cudurkan uun sii faafinayaan Shiinaha ayaa horaanba lagu eedeynayay sida uu cudurkan u wajahayo iyadoo lagu xamanayo inuu haddaba laayay bukaano badan oo cudurkani haleelay waxaana haatan lagu waramaya inuu doonayo inuu laayo ugu yaraan 20,000 oo bukaan dawladda ayaa dukumeentiyada ay maxkamadda u dirtay ku sheegtay in muwaadiniin badan oo caafimaad qaba waayi doonto haddii aan kuwa bukaan naftooda u horin badbaadada kuwa wali faya qaba taasoo ah arrin anshaxan aad looga dayriyay ugu dambeyn meel haddii cudur xun oo faafo ka dilaaco lama galo lagamana baxo qaladaadka ay dawladaha dunida qaarkood ay sameynayaan waxa kamid ah in ay China ka soo daabulayaan dadkooda taasoo keeni karta inuu cudurkaasi si sahlan dunida ugu faafo islaamku wuxuu 15 qarni ku dhawaad ka hor la yimid fikrad cudurrada halista ah kolka ay dilaacaan lagu karantiilo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadii aad cudur xun oo faafa aad ka maqashaan wadan hagelnina wadankaasi hadii cudurkaasi ka dilaaco dhul aad joogtaana ha ka bixinina adinka oo ka cararaya cudurkaasi riwaayad kalena waxa ay tiri cudurrada xun waa canaan lagu ciqaabay ummadihii idinka horeeyay qaarkood kadibna dhulka ayuu ku baaqi noqday oo kolna wuu tagaa oo waa la waayaa kolna wuu yimaado oo soo noqdaa ee qofkii maqla inuu dhul cudur xun ka dilaacay yuusan aadin haddii uu joogayna yuusan ka bixin isaga oo ka cararaya cudurkaasi dawladda Soomaaliya weli ma qaadin wax tallaabo ah oo ay ku joojinayso safarada ka imaanaya amaba u socda Shiinaha ee Soomaaliya ku xiran sidoo kalena waxa jira dayuurada caalami ah oo Shiinaha taga misna Soomaaliya yimaada sida Ethiopian Airlines qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkii wadanka intii aan ka gaarayna warka iyaga xiga waxaan kaga tageynaa guul iyo gobonimo